arrintaa waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada ilaas way jirtaa telefoon ma nagula hadleen waa ogolaaday isna wuxuu waa ogolahay waraaq bay soo direen waa 8 bilood ka hor mid waraqada noo saxay kalsoonida inuu arrintaa idin gogolo waa saxay waa diiday isuuran baa soo gashay safiirku arrimaha dib soo hadlay intii la guul warqadu waa saxay afkii ka aqbalay waa saxay waay ilaa markay taagantay waxay bibikii soo Afrikaanka ahaa wuxuu ka bilaabay halada dhexdhexaadiye xageebaa doonaysa isagu mar walba iyagu waxay sheegtaan Ankara iyo Dooxa wuxuu waxaan geynaa Johannesburg waa ogol isagii baa lagu weeriyay hadda cidhowta waxay booro waray ka sheegay Turkiga war kaliya ku aqbalay meeyne caalamku kala soo dhex galo wuu aqbalay warqad soo celiyay hadda Ingiriiska Mareykanka EU Afrika baashan Yurub ka soo tagtay Sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la Ghana Accra si loo sameeyo gudi caalami ah oo Soomaaliya iyo Soomaaliya ka dhex gashay waxa hubaala inay xamar iyo inta la joogtaa wax ka dagaalamaya walaalahay waxay bahaynaa haddaynu Soomaaliland nahay warwaro aan garano oo inaan isku dhimano xabadii naga daa aan wada hadal waxba naga dhaxeeyay waxaanu haynaa qorax mar joogto leh wada hadli ma yihno waayo naga midbaatiina ma diidi kartaa iyagana taas ka goob bal halka xal laga helayo odayaalo aanu ka fikirnaa hadda noo garabayno dadka caanka u garabayay gaarana markay meel gaarsiiyaba way kaga baxaan marka meel ay gaarsiinayso dadkuba way kaga baxaan taa waxaan ugu dheeraaday waa arrin culus oo dalka culays waa haysta oo warar haysta oo inaynu fahamno mowqifkan ku socona ah ayaa iyada saayid ku balbalaariyay